injiilka sida Matayos u qoray cutubka 2 imaatinkii nimankii xigmadda lahaa goortii Ciise ku dhashay Baytlahamtii Yahuudiya waagii Herodos boqorka ahaa waxaa Yeruusaalem bari kaga yimid niman xigmad leh iyagoo leh xaggee buu joogaa boqorka Yuhuudda ee dhashay waayo bari ayaanu xidigtiisii ka aragnay oo waxaanu u nimid inaanu caabudno goortuu boqor Herodos waxaan maqlay ayuu welwelay isaga iyo reer Yeruusaalem oo dhan oo intuu soo ururiyay wadaadadii sare iyo culimadii dadka oo dhan ayuu weydiiyey meeshii Masiixu ku dhalan lahaa oo waxay ku yiraahdeen Baytlahamtii Yahuudiya waayo sidaasaa nebigii u qoray adigu Baytlaham oo dhulka Yuhuud ahay kuma aad yarid baa caaqilada Yuhuuda dhexdooda waayo waxaa adiga ka soo bixi doona taliye kan dadkayga Israa'iil u talin doona markaasuu Herodos nimankii xigmadda lahaa hoos ahaan ugu yeeray oo ka hubsaday goortay xidugtu muuqatay kolkaasuu Baytlaham cid u diray oo ku yidhi taga oo ilmaha aad u doondoona oo goortaad heshaan isoo ogeysiiya si aan anna ugu tago oo u caabudo goortay boqorkii maqleen ayay tageen oo xidigtii ay bari ka arkeen ayaa horkacday ilaa ay timid oo ay kor joogsatay meeshii ilmuhu joogay oo goortay xidigtii arkeen ayay farxad aad u weyn ku farxeen markaasay gurigii galeen oo waxay arkeen ilmihii iyo Maryam hooyadiis wayna dhaceen oo caabudeen isaga oo intay qasnadahoodii fureen waxay isaga u dhiibeen hadiyado dahab iyo beeyo iyo malmal ah markaasaa riyo loogu digay inaanay Herodos ku noqon oo dhulkoodii ayay jid kale u mareen cararkii xagga Masar goortay ka tageen malaa'igtii Rabbiga ayaa Yuusuf riyo ugu muuqatay iyadoo leh kac oo kaxee ilmaha iyo hooyadiis oo Masar u carar oo halkaas joog ilaa aan kuu soo sheego waayo Herodos ayaa ilmaha dooni doona inuu dilo waqti habeen ayuu kacay oo ilmihii iyo hooyadiis kaxeeyey oo Masar tegey oo halkaasuu joogay ilaa dhimashadii Herodos inay noqoto wixii Rabbigu kaga dhaxadlay nebiga isagoo leh wiilkayga ayaan Masar uga yeedhay layntii Herodos uu carruurtii Baytlaham laayay goortuu Herodos arkay inay nimankii xigmadda lahaa ku cayaareen isagii ayuu aad u cadhooday oo cid buu u diray oo laayay wiilashii yaryaraa oo dhan kuwii 2 sannadood jiray iyo kuwii ka yaraa oo joogay Baytlaham iyo meelaha u dhow oo dhan sida waqtigii uu nimankii xigmadda lahaa ka hubsaday markaas waxaa noqotay wixii nebi Yeremiya lagaga dhaxadlay isagoo leh cod baa Raama laga maqlay oohin iyo baroor weyn Raaxeel oo u ooyeysa carruurteeda oo aan doonaynin in la qalbi qaboojiyo waayo ma ay joogin ka soo noqodkii xagga Masar laakiin goortuu Herodos dhintay malaa'igtii Rabbiga ayaa riyo ugu muuqatay Yuusuf oo Masar jooga iyadoo leh kac oo kaxee ilmaha iyo hooyadiis oo dhulka Israa'iil tag waayo kuwii ilmaha naftiisa doonayay waa dhinteen markaasuu kacay oo kaxeeyey ilmihii iyo hooyadiis oo dalkii Israa'iil tegey laakiin goortuu maqlay in Arkhala'os meeshii aabihiis Herodos Yahuudiya xukumayo wuu ka baqay inuu halkaas tago markaas Ilaah baa riyo ugu digay
oo uu dhinacyada Galiili ku leexday. wuxuuna yimid oo degay magaalada Naasaret la odhan jiray si ay u noqoto wixii nebiyada lagaga hadlay. waxaa loogu yeedhayaa Naazaraani.